kani waa maalqabeen iyo hogaamiye la fahantiisu iskale guud ahaan hantida guud ee dowladda North Korea. Kim Jong-un waa mid ka mid ah kaligi taliyayaasha adduunka ugu caansan ka oo hogaamiye dal ku hubaysan quwadda nukliyeerka. 2012 ayuu daayirkani la wareegay hogaanka dalkan goortaas oo uu geeriyooday aabihiis, waxaana uu hogaamintiisa tirdhaxaad uga dhigay gacan bir ah oo uu ku maamulay dalkan. ninkani waxa uu dalkan hanti wadaaga ku hogaamiyay si qarsoon, si taas la mid ah noloshiisa wax badan lagama oga. xitaa maalintiisa dhalashada ayaan la ogeyn oo da'diisa waxa lagu qiyaasaa 37 ilaa 38 jir. hase yeeshee muuqan uga hadlimayno taariikh nololeedkiisa oo idil. waxaynu kaliya diiradda ku saareynaa bandhiga 8 waxyaabood oo ku khaas ah noloshiisa. 1. xaddiga lacagta uu kharash gareeyo sanadkii. guud ahaan wax soo saarka lacageed ee dalkani ninkan gacantiisa ayuu ku jiraa, taasoo sahlaysa inuu kharash gareeyo intii uu doono sanadkii. Kim Jong-un waxa uu sanadkii noloshiisa iyo tan qoyskiisa ku dabiraa lacag lagu qiyaasay $600 milyan. lacagtaasi oo ka turjumaysa habnololeedka sare ee isaga iyo qoyskiisu uga nool yihiin dalkan dhaqaale ahaan fakhriga ah. 2. taageeradiisa kubadda kolayga. yaraantiisii maruu ku jiray school boarding ah oo ku yaal dalka Switzerland, halka oo sidoo kale hooyadiis ugu xanuunsanaysay cudurka kansarka, ayuu fursad u helay inuu la qabsado ciyaaraha sida weyn looga tixgeliyo galbeedka ee kubadda kolayga iyo iskiinka ciyaarta loo yaqaano ay ugu horeeyaan. waxaana jacaylka uu u qaaday tartamadan ciyaareed sababeen inuu cilaaqaad la yeesho ciyaartooy waaweyn oo kubadda kolayga ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Michael Jordan iyo Dennis Rodman ayay saaxiib khaas yihiin. waxaana uu socdaa 2 maalmood mar ugu tagay Kim gudaha dalka North Korea, waxaana ciyaartooygaas haatan howlgabka ahi noqday Ameerikaankii ugu horeeyay ee la kulmay ninkan, kaasoo hogaamiyaha Koreana ku qaabilay soo dhaweyn heer sare ah. 3. hantida uu haysto. inkastoo aan dhab loo ogeyn dhaqaalaha ninkani gaarka u leeyahay, haddana wariyayaal iyo cilmi baarayaal qiimeyn ku sameeyay hantida uu lahaan karo ayaa raasumaalkiisa ku qiimeeyay 8 ilaa 10 bilyan oo dollar. hantidani waxay guud ahaan ka soo gashay wax soo saarka dalkiisa, ka ganacsiga sharci darrada ah ee foolka maroodiga iyo beecinta khamrada sida warbixino khaas ah tilmaameen. 4. xariga uu u geystay walaalkiis. Kim Jong-un waa yaraanka walaalihiis, wiil iyo gabar ayaana kor uga weyn isaga. wiilku waa Kim Jong-nam, ka oo loo arkayay inuu talada ka dhaxli karo aabihiis, balse taas ku fashilmay kadib markii uu baasaboor been abuura ku tagay Tokyo, socdaalkaasi oo shaki geliyay daacadnimadiisa. taa ayaana sababtay in walaalkiisu fursad u helo inuu aabihiis talada ka dhaxlo. hase yeeshee waxa walaalkiis lagu xiray gudaha North Korea 2017, taasoo lagu eedeeyay in isagu ka dambeeyay. 5. suuligii uu ula safray dalka Singapore. dhacdo adduunka ka yaabisay ayay ahayd maqalka suuliga la qaadan karo ee Kim Jong-un ula safray dalka Singapore, halka oo 2018 kulan taariikhi ah kula lahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. suuligaasi cunto iyo agabyo kale oo xabadda celiya ayuu Kim dalkiisa hore uga sii qaatay kolkii uu u safrayay dalkaasi. Kim Jong-un ma jiro dal uu amnigiisa ku aamino oo aan ka ahayn dalka China ee uu xulufada dhow la yahay. 6. halka uu ku nool yahay. wuxuu qoyskiisa kula nool yahay qasriga dalka looga taliyo, halka oo ah hoyga saldanada qoyskiisu dhaxalkeeda iska leeyihiin ee North Korea. 3 carruurta iyo xaaskiisa ayuuna halkaasi kula nool yahay. qasrigan waxaa loogu yeeraa guriga xafladaha iyo raaxada, waxaana uu ku yaal buur dusheed gudaha magaalada Pyongyang. waana dhismo aad loo qurxiyay, ka oo gudihiisa lagu camiray beero cajiib ah, gawaari qaali ah iyo jidad heer sare ah. 7. jariinkiisa timaha. qaabka uu tintiisa u jaro waa caado soo jireen ah oo lagu yaqaan hogaanka dalkan. sidoo kale waxaa jira sharci khasbaya in guud ahaan ardayda ragga ah ee dalkaasi ay u jartaan sida hogaamiyaha. hadday xeerkaasi jabiyaanna ay la kulmi karaan ciqaab adag. habjariinka Kim, inkastoo meelo badan oo adduunka ah looga jarto, haddana kiisa waxaa gudaha dalkaasi looga yaqaanaa himilo, taa oo ka dhigan inay ka turjumayso hankiisa qofnimo. 8. 130 dhakhtar ee qaabilsan caafimaadkiisa. ninkani waxa uu shaqaalaysiiyay 130 dhakhtar oo ka shaqeeya caafimaad qabkiisa kaliya. waa arrin la yaab leh shaqada ay hal qof uun caafimaadkiisa ka wada qabtaan intaasoo dhakhtar. hase yeeshee Kim waxa uu dhakhaatiirtan u dirsaday inay caafimaadkiisa uun ilaalo ka hayaan.